السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay beel kastood naga daawanaysaan. taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha May sanadka 2026. qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa marinbiyoodka Hormuz xaaladiisu halka ay marayso iyadoo la sheegayo maraakiib tiro badan inay gudbeen tan iyo markii Mareykanka uu sheegay inuu xayiraad dhinaca dhaqaalaha ku soo rogay dekedaha Iran. haddaba warbaahinta Mareykanka ayaa u kuur gashay baaritaan samaysay hay-adaha la socodka maraakiibta caalamka meel kastoo markab marayo iyo xaalkii siduu yahay hay-adaha ka shaqeeya ayaa lala kaashaday. waxaa la soo helay xog la yaab leh. waxay yidhaahdeen 81 markab ayaa ka gudbay marinbiyoodka Hormuz intii Mareykanka uu yiri xayiraadaan saaray Iran. in ka badan kala bar maraakiibtaas waxay u socdeen ama ka soo socdeen dekedaha Iran, waxayna weliba wateen qaarkood inta badan calanka Iran. marka waxay leedahay yaa iskale maraakiibtaas. Mareykanka wuxuu noo sheegaa markab Iran leedahay inuu qabtay kan qabtay. haddaba marka tafaasiil badanaa la sii galay, wax badanaa la sii baaray, waxaa soo baxday inay hal qolo leedahay oo cid kale aanay noqon karin. in Shiinuhu leeyahay maraakiibtaas China oo maaragtay Iran galaysay ka soo baxaysay, Mareykankuna aanu la hadli karin. horena loogu sheegay la yiri iska jir maraakiibtayda isku taaban, ganacsiga igala dhaxeeya Iran, shidaalkaasi waxaasaan meesha ka qaataa. marka warbaahintii Mareykanka waxay taagan yihiin ninkan Trump iyo kooxdiisu adduunkii iyo Mareykankiiba waa been u sheegayaan. cunaqabateyn buuxdo oo Iran saaran ma jirtay leen. Iran intaasoo markaba iska socotay. haddaba warbixintan la yaab kale waxaa qoray saakay telefishinka Al Jazeera iyadoo laga soo xiganayo warbaahinta Mareykanka, iyadoo buuq fara badan Mareykanka uu ka taagan yahay. Al Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay 81 markab ayaa jabiyay qaraarkii Trump ama go'aankii Trump, waxaana la sheegay in ay u muuqato arintani in lagu fashilmay xayiraadii Mareykanku ay saarayeen Hormuz. haddaba warbixinta marka way sii socotay. halkan waxaa leeyahay bayaan la soo saaray oo laga soo xigtay shirkadda la yiraahdo Marine Traffic oo iyadu qaabilsan badaha iyo maraakiibta socota, oo markaa warbaahinta Mareykanku ay soo qaateen warkeeda. waxay xaqiijiyeen in markaa 53 markab ay khilaafeen go'aankii Mareykanka ee marinbiyoodka Hormuz, kuwaasoo la sheegay qaarkood inay ka yimaadeen unana socdeen dekedaha Iran, waxaana ay wateen weliba inta badan calanka Iran ayay wateen. 11 ka mid ah maraakiibtaas waxaa la sheegay weliba inay ku jireen liiska Mareykanka uu horay cunaqabateyn maraakiib uu u saaray iyadoo lala xiriirinayo inay Iran la shaqaysanayaan. marka waa wax la yaab leh moogtay sheekadan. marka waxa waaye waa sheeko cajiiba waaye. warbaahintii Mareykanka marka waxay leeyihiin cunaqabateyntan macnaheeda maxay tahay? Iran saaran. Iran waxay leedahay waraa cunaqabateynta hadaadan iga qaadin iska jir. asaguna wuxuu leeyahay wax kuu soo gudbaayo male. xogtan aan haynana hadda oo la xaqiijiyeyna Iran maraakiiba iska tagta, kana soo tagta, wax ka soo qaada, cid la hadashana male. marka dad badan oo marka falanqeeyaal oo arrinkan aad uga hadlayay oo aqoon-yahanaa waxay leeyihiin hal qolo unbay noqon kartaa keliya. Shiinaha oo horay ugu sheegay Mareykanka inuu cilaaqo la leeyahay Iran oo shidaalka Iran iyo waxa kan iyo oo isagu markaa shirkadiisu ay ku jiraan. marka Mareykanku hadduu isku dayo inuu hor istaago Shiinaha ganacsigiisana, Shiinaha iyo Mareykankuna ay markaa adduunka oo dhan saas ay isugu aysan doonaan. marka Trump waxaa leeyahay adduunkana u booteeya maalin walba uu iska hadlaa kana sameeyna u dhahaa, laakiin waxa hoos ka socda way ka duwan yihiin
waxa kor ka socdaa leeyahay. marka sheekadan sheeko cajiiba waaye oo marka hadda soo baxday sida la leeyahay. waa sii soconaynaa arrinta marka saameynta intee la-eg shirkadihii maraykanka diyaaradaha mid ka mid ah ayaa kacday, way musallaftay, dhaqaale la-aanaa ku dhacday. sababta waxay yidhaahdeen dowladdana caawiya nala weyn naga diiday. waa shirkad ganacsi oo dadka rakaabka qaada, inkastoo shirkadaha waaweyn aysan ahayn, laakiin shirkada caadiya kuwa yaryar ah waa kacanay tiri. sababtana waxaa ugu wacanay tiri gaaskii lagu shubayay diyaaradaha oo qaaliyoobay, Hormuz markii la xiray wixii oo dhan waa isbixin weynay dhaan, dowladuna weyna caawin weys. marka waxaa leeyahay cabsida in shirkado kale ay kacaan oo ay musallafaan waxaa ka mid ah shirkado badan oo Yurub laga leeyahay ayaa baqdin laga qabaa, oo weliba qaarkood shirkado waaweyn yihiin. saameynta marka arrinka ay yeelanayso. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey ee sheekada shirkadan musallaftay lagu qoray. haddaba wakaaladda wararka Associated Press ayaa goordhow qortay shirkadda diyaaradaha Maraykanka in markaa ay u diyaar garoobayaan inay joojiyaan shaqadeeda maanta, inay joojiso shirkadda diyaaradaha. haddaba Associated Press waxaa markaa la sheegayaa shirkadan diyaaradaha Maraykanka ee la yiraahdo Spirit ayaa waxaa la sheegay inay joojinayso shaqadii ay haysay kadib markii aanay helin taageero dhinaca xukuumadda ah. haddaba shirkadan waxaa soo wajahay tallaabooyin khasaaro fara badan ayaa ku dhacay. markii hore xaalkeedu ma fiicnayn, horey ayaa khasaarooyin kale ay ula kulantay, laakiin hadda waxaa la sheegayaa waxaa sare u kacay oo saameeyey shidaalka diyaaradaha sabab la xiriirta dagaalka Iran. 17,000 oo shaqaale ah oo shirkadda la shaqaynayay ayaa shaqo la-aan ku dhacaysa maanta. u fiirsada, shirkadan markii horeba xoogaa tacbaanay ahayd, iska galab ay iskaga socotay, laakiin hadda waxaa saameeyaan leeyahay arrintan shidaalka kicistiisa diyaaradaha oo markaa ay musallaftay shirkadii Spirit la yiraahdaa. waa shirkad maaragtay diyaaradaheedu dadka caadiga rakaabka ay raacaan oo dadka ganacsiga, shirkad ganacsi waaye. 17,000 oo ka mid ah marka shaqaalaheeda ayaa shaqo la-aan ku soo dhacaysa leeyahay. xaalku marka halkaas u maraya. marka waxaa leeyahay Maraykan kaliya maahane, Yurub iyo meelo badan haddii xaalku sidaa ku sii socdo, marka waa loo yaabaa shirkado badan inay iyaguna musallafi doonaan oo marka dhibaato ay soo gaari doonto.